xeerka Indian Child Welfare Act ama ICWA waxaa la meel mariyay 1978 iyadoo loogu jawaabayo xeerarka sii xumaanaya ee caruurta calibisteynka Mareykanka loogu saaray guryahooda iyo jaaliyadahooda. Caruurtan badankooda waxaa ka geeyay guryo aan kuwa calibisteynka ahayn. Tani waxaa loo arki karay si wadida qasab uga saarida caruurta calibisteynka ee loogu saarayo guryahooda iyadoo loo marayo waayihii boardingka iskuulka. Sidaa daraadeed, siyaasadda federaalka ka dambeysa ACW waa in lagu ilaaliyo danaha ugu wanaagsan ee caruurta calibisteynka laguna horumariyo xasiloonida beelaha iyo qoysaska calibisteynka. Xeerka ICW wuxuu leeyahay shuruudo khuseeya dacwadaha haynta ilmaha gobolka ee ku lug leh caruurta calibisteynka ee xubinka ah ama u qalma xubinnimada qabiil federaal ahaan loo aqoonsan yahay. Qaar ka mid ah shuruudahaas waxaa ka mid ah ogeysiinta qabiilka cunuga calibisteynka. Haddii ay tahay in cunuga lagu meeleeyo meel ka baxsan guriga, markaas waa in la raaco xulashooyinka meeleynta. Xulashooyinka meeleynta waxaa ka mid ah ku meeleynta xubin qoyska, xubin qabiilka ah ama guri kale oo calibisteynka Mareykanka ah. Xeerarka ICWA waa muhiim sababtoo ah wuxuu iftiiminayaa cadaalad darrada taariikhiga ah. Wuxuu garowsanayaa xaqiraada ka jirta meeleynta guriga ka baxsan caruurta calibisteynka Mareykanka. Xafiiskeen wuxuu muujiyay sida ay uga go'an tahay xeerarka Indian Child Welfare Act, isagoo dhisaya koox qareeno oo takhasus u leh kuwaas oo maamula kiisaska ICW iyo iyagoo ku taageeraya xeerarka Minnesota Indian Family Preservation Act. Xeerka ICW ku daraya sharciga gobolka.